gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed oo mudooyinkanba ku sugnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa la soo warinayay inay la soo diristay xaalad caafimaad darro oo kaliftay in loola cararo mid ka mid ah isbitaalada waaweyn ee ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. xubno ku dhow gudoomiyaha ayaa noo xaqiijiyay inuu xanuunsaday gudoomiyaha waliba xanuun daran isla markaana la dhigay isbitaalka Digfeer oo saacado badan uu ku jiray. waxaa kor u kacday sida xubnahaasi ay noo xaqiijiyeen sokorta ama macaanka ku jira jirkiisa taas oo uu la xanuunsaday gudoomiyaha. saacado oo uu ku jiray isbitaalka kadib xaaladda caafimaad ee gudoomiyaha ayaa soo wanaagsanaatay waxaana markii dambe laga soo saaray isbitaalka. hadda xaaladda caafimaad ee gudoomiyaha ayaa la soo sheegayaa inay wanaagsan tahay. Sheekh Cismaan Barre Maxamed gudoomiyaha baarlamaanka ee Hirshabelle ayaa Jowhar oo ah xarunta maamulka Hirshabelle ka maqan wax ka badan bil iyadoo baarlamaanka fadhiyadiisu ay furan yihiin. haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar channelkan.